بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين دمان خيارت قرسي سودوادا إن مانتو حاربنا إنا بلاونا كورس كيني هاي إكسل سيريس aan ugu talagalnay inay ka faa'iidaystaan ardayda dadka professionalka ah iyo dadka shaqeeya xafiisyada. Kooraska wuxuu ku bilaaban doonaa sida aan horey hordhac ugu sheegnay in interfaceska ama qaybaha ugu muhiimsan ee ugu horeeyo Excelka in aan barano. Maanta cashirkeena koowaad wuxuu noqon doonaa wax loo yaqaano Excel interface. Ku soo dhawaada cashirkeena maanta ee Microsoft Excel interface. Markii aad interface ku waxay tahay shaashada weyn ee ka hadlayso waxyaabaha dhan ee loo yaqaan Excelka oo isticmaalo. Waxa ugu horeeya wax loo yaqaano title bar. Title barku waxay tahay halka muujinayso magaca worksheetka ku furan. Work 1 ayaa hadda inoo sheegaya kan. Haddii aad heesa lahayd worksheet kale ee ku qoran yahay magacna waxa ogaan lahayd magaca tusaale worksheet kan kale waxa ku qoran wax loo yaqaano gaarsiin. So halkan ugu horeyso waa meesha ugu muhiimsan ama waxay ku kala sheegaysaa inaad joogtid Excelka ku furan documentiga oo yahay iyo waxyaabaha oo ka hadlayo. Laba waxa kale oo jira interfaceka marka aad joogto wax loo yaqaano quick access toolbar. Quick access toolbarka marka muxuu qabtaa waa meesha kuu fududeynaysa inaan si degdeg ah u isticmaasho inta aadan gaarin qaybaha kale inaad ka isticmaali karaysid. Tusaale hadda waxa ku jira meesha save, waxa kale oo ku jira wax loo yaqaano undo, waxa kale oo ku jira redo. mid walba sida u shaqeeya cashirada dambe ayaan ku arki doonaa. Waxaa kaloo samayn kartaa markaad joogto halkan quick access toolbarka waxaa kusoo dari kartaa tabs cusub. Tusaale hadaa u baahan tahay inaad Excel cusub furtid oo kale halkan ayaa ku dhufa doontaa kadibna waxaa kusoo furi doono book cusub sida hadda inuu muuqato kale. Waxaa kaloo kusoo dari kartaa quick printing haddii aad wax daabacdid marka aad daadid quick printing toos wuxuu kuu goyn doonaa printing haduu kugu xiran yahay. Sidoo kale intana waad ka reebi kartaa mid walba oo aad kusoo dartay markii horeetay quick access toolbarka. Waxaa kaloo jira markii halkan la joogo interfaceka waxa loo yaqaano ribbons ama ribbon tabs. Ribbon tabska waxay tahay waxyaabaha ugu waaweyn ee Excelka oo isticmaalo. Tusaale waxaa ka mid ah ribbon tabska homeka, insertiga, throughga, page layoutga, formatka, dateka. Dhammaan waxyaabaha waxay tahay waxyaabaha kuu fududeynaya inaad Excelkaada isticmaasho. Mid kasta oo kamid ahna wuxuu leeyahay subfunctions oo si gooni u ah oo loo isticmaalo markii la joogo Microsoft Excel. Interfaceka waxaa kaloo muhiim ah qofka inuu barto wax loo yaqaano name boxing. Name boxing kan ama name boxka wuxuu sameeyaa inaad ku ogaatid halka aad ka taagan tahay Excelka ku furan. Hadda wuxuu taagan yahay wax loo yaqaano A1. Haddii aad halkan ku dhufto waxaa ka muuqan doonta C6 oo micnaheedu tahay waxaa taagan tahay cellka C6 marka wuxuu qabtaa shaqooyin badan marka wuxuu kuu soo muujinayaa sida meesha hadba aad taagan tahay. Waxaa kaloo jira wax loo yaqaano Excel interfaceka marka aad joogno formula bar. Formula barku waa halka xogta la geliyo Excelka. Wuxuu kaloo kuu soo muujinayaa xogta ku jirto sheetka. Tusaale hadda sheetkan haddii aan ku qoro ABC waxay ka muuqan doontaa formula barka. Formula barka wuxuu kaloo intuu kuu qaban karaa inaad isagii aad kusii kordartid waxyaabaha aad u baahan tahay. Tusaale 1 2 3 waa formula barka wuxuu kuu muujinayaa inaad wax ku kor dari kartid halka aad taagan tahay wixii ku jirna uu kuu sheegay. Haddii meel cad tago waa banaanaa doonaa markii aan soo istaago isigana cell korkiisa wuxuu ii sheegi doonaa halka aad joogo iyo waxyaabaha ku qoran. Sidoo kale wuxuu muhiim u yahay markii functions la gelinayo Excelka. Tusaale waxaad rabtaa laba shay in aad ku dartid. Marka laba shay isku daraysid cellka markii aad joogno haddii aan dhahno tusaale ahaan labadooda isku soo jiidno haddii aan sum u sameyno halkan sumka waxaa ka muuqato 4 kaliya. Laakiin marka ay ku dhufatid formula barku wuxuu kuu sheegi doonaa maxaa la yiraahdaa halka ay ka timid afartan oo isku inta A2 iyo P2 marka waa meesha ugu badan ee functionska iyo xogaha laga akhriyo. Marka halka kale istaagtid number kaliya ku jiro kulliya cellkasi waxa ku jiro ama waxyaabaha uu ka hadlayo ayuu kuu sheegi doonaa. Interfaceka waxaa kale oo kamid ah wax loo yaqaano worksheet area. Worksheet area waxa la yiraahdaa shaashadan ballaaran halka lagu shaqeynayo yaalaan ama dhammaan ay ku kulmayaan columnska oo ah waxyaabaha ku socda xarfaha A B C D ilaa ay ka dhamaato. Sidoo kale rowska halkaas ayaa loo yaqaanaa worksheet area. Waa meesha aad ku shaqeyn doonto oo shaqooyinka ugu badan ama xogta la geli doono. Marka worksheet area muhiim waayo qofka inuu si fiican u fahmo. Waxaa kaloo jira wax loo yaqaano interfaceka marka aad joogtid sheet tabs. Sheet tabsku waa halka ku kala cadeynayso workbook waxaan dhahnay wuxuu sheegayaa documenti ee aad isticmaalayso. Laakiin worksheetska waa halka aad ku kala saari doonto ama aad ku soo dari doonto sheetad cusub. Hadda waxaan ku soo darayaa dhowr sheet. Markaan taaganahay 1 wuxuu ii soo muujin doonaa sheet 1 xogta igu qoran. Sheet 2 marka aad tago tusaale ahaan haddii aan ku qoro magac waxa igu qornaa doona xogtaasi. Haddii halkan aad tago oo aan ku qoro
sidoo kale inta qof magaciisa tusaale gaarsiiye so sheet walba wuxuu leeyahay qayb gooni u ah sheetkan waxa ku samayn kartaa laba qaybood waxa qori kartaa magacyo kala duwan inta ugu professional waxay tahay qofka inuu magac ku qoro tusaale ahaan sheetka ugu horeeya waa dileedi kartaa nimid soo dari kartaa magacna waa ka bedeli kartaa haddii aad shaqooyin professional ah qabanayso sheetka waxay ku habboon yihiin inaad magacyo ku qorto oo kala ogaatid sheet wanko kale tusaale hadda waxaan ku qori karnaa inaan dhahno maadaama ganacsi hadda aan leedahay kale dakhli waxyaabaha oo dakhliga ah ayaa lagu aruurin doonaa dakhliga sheet 2 double click hadaa dhahdidna same waa ku qori kartaa waxa u baahan tahay qarashaadka sheet 3 waxaan dhihi karnaa waxa ku aruuriyana faa'iidada si haddii aan u baahno inaan isticmaalno waxyaabaha aan rabno inaan si degdeg ah ku heli karno soo marka magacyo kala samayso waxa kala ogaan doontaa sheetka aad joogtid iyo waxa aad rabtid inaad ka baratid balasta hadaa dhahdidna waxa ku soo dari kartaa sheet cusub oo ku soo biiraya sheetkaaga sidoo kale inta markii la joogo Excel interfaceska waxa jira wax loo yaqaan status bar marka muxuu qabtay status barka waa halka hoose ee ku sheegayso inta sheet uu furo markii laga soo tago halkan hoose ayaa loo yaqaan status barka marka maxaa laga helaa view-ga qaabka uu muuqdo doono ayaa laga maamulaa sidoo kale inta zoom in iyo zoom out waa laga maamulaa haddii Excel kaaga ay xog ku jirtana wuxuu ku ogolaan doonaa inuu kuu sheego waxyaabaha aad dooratay iyo wax ku jiro tusaale ahaan hadda haddii aan doorto saddexdan shay oo status barka ii sheegi doona average-ka wixii aan doortay ama sheetska aan doortay average-kooda isku geynta saddexda sheet average-kooda imiso sheet ayaa dooratay numberskooda waxay ahaayeen ilaa iyo saddex sheet waxyaabaha aan doornay wuxuu kaloo kuu sheegi doonaa numberska ama xogta ku jirta haddii tiro tahay isku geynteeda meeqa waayo tusaale hal labo iyo labo lagu isku geeyo waa 5 marka waa status barka isagana waa meelaha ugu muhiimsan wuxuu ku sii doonaa waxa loo yaqaan sum wuxuu kaloo ku sii doonaa average-ka wuxuu kaloo ku sii doonaa tirada countiga wuxuuna ku ogolaan doonaa inaad zoom in iyo zoom out ku sameyn kartid si aad si fiican ugu ogaatid waxyaabaha ku jiro sheetskaaga dhexdiisa ama cellka wax ku dhex jiro interface-ka waxa kaloo ku jira wax loo yaqaan back view waxay tahay markii aad rabtid inaad save gareysid waxay ku jirtaa fail markaa soo furtid halkan waxaa ku arki doontaa dhammaan waxyaabaha u baahanta haddii ahaleed inaad save gareysid informationka save as printing explore share ama close waa wax loo yaqaano back view-ga waa meelaha ugu muhiimsan ee markii la joogo interface-ka inuu qofka si fiican u fahmo laga rabo maanta waxaan baranay cashirkeena koowaad ee Microsoft Excel waxaan ku soo qaadanay inaan ku fahanno interface-ka u leeyahay Excel-ka waxaan baranay maanta maxaa loo yaqaanaa title bar maxaa loo yaqaanaa ribbons working area iyo dhammaan sheetska iyo siyaabaha ay u kala baxaan waa inoo cashirka dambe insha Allah